على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوعنا ما أنت وحا وكسر سنانتنا إن شاء الله صلاة. عبادة الصلاة ورنتي آد مهمة إلهينا وإنه أطونصدي waxyaabaha cibaadaadka ugu sii muhiimsanna kamid ah. waxaynu maanta uga hadli doonaa dhinacyo dhowr oo kala duwan oo ay kamid yihiin mafhuumka salaada, macnaha salaad maxaa la yidhaahdaa, iyo xukumka salaada oo ah waajib, darajada aadka u sarreysa ee islaamka ay ku leedahay, iyo khasaa'ista waxyaabaha ay la gaar tahay salaadu ee ay kala gaar tahay cibaadooyinka kale, siiba arkaanul islaamka iyada kasoo hadhay tawxiidka mooyaane. xukmu taariki salaad, qofka salaada ka taga xukumkiisu muxuu noqonayaa, maxay ka yidhaahdeen culimada islaamku, iyo waxaynu ugu dambaysiin doonaa fadaa'il salaa, bal sida islaamku uu aada u dhiirigeliyey iyo fadliga iyo qiimaha badan ee uu salaada ku sheegay. salaad markeeda hore xagga luqada haddii aynu tacriifino, oo shayga waxaa muhiima kolka u horeysa waa in la garto. haddaba haddii aynu tilmaano salaad waxa la yidhaahdo xagga luqada waa adducaa, baryo ayaa la yidhahdaa xagga luqada carbeed. ilaahay baa waxau ihi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum wallahu samiicun caliim. waa aayadda 103 suuratu tawba. waxaad ka qaadaa nebi maxamedow, xoolahooda waxaad ka qaadaa dadka muslimiinta ah, sadaqo ka qaad, waa sekadii weyi, taasoo aad ku nadiifinayso. ilaahay baa nadiifinaya, laakiin marka aad ka qaado ayay dembi dhaaf ka helayaan. aayadda waxaa ku jira ereyga ah aynu usoo daliishanay ah wasalli calayhim, u ducee. wasalli calayhim, u ducee baa lagu macneeyey. ku tuka imika maaha, laakin waa u ducee. ducadaadu deganaanshay u tahay dadka muslimiinta ah ee aad sekada ka qaadayso. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis waxa uu ku yidhi idaa dacaa axadukum falyujib, idaa duciya axadukum falyujib, fain kaana saa'iman falyusalli wain kaana mufdiran falyudcim. mid idinka idinka mid a hadduu walaalkii u yeedho oo casuumadu ugu yeedho u idhaahdo hebelow igala soo qayb gal, nebigu waxa uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, haddii uu qofkan loo yeedhay sooman yahay ha u duceeyo. falyusalli baa ku jirta, ha tukado maaha, laakin waa ha u duceeyo. ha u duceeyo hadduu sooman yahay, oo waxaad leedahay hebelow waxaan kaga qayb qaadanayaa casuumadan inaan kuu duceeyo, dee waanaan kusoo ajiibo kusoo raacay. haddii uu markaa afuran yahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, oo aanu soomanayn qofkan loo yeedhay, waxa ka cuna casuumada. xadiidkaa muslim baa ku wariyey kitaabu nikaax. marka labadaa nas aynu eegno, aayadda iyo xadiidkada, waxa ay tilmaamayaan in xagga luqada lagu tilmaamo salaada duco. haddaba salaadu marka ay ilaahay xaggiisa ka timaado, masel naska ay ku soo aroortay iyo daliilka inuu ilaahay ku saliyey addoomaha kamid a, waxay noqotaa xusnu sanaa, ammaan aada iyo aada u wanaagsan oo alle xaggiisa ka timi oo addoonkiisa uu mahadinayo weeyaan. salaadu marka ay ka timaado malaa'igta xaggeedana waa duco. ilaahay baa waxau ihi ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay ku saliyayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. dadkiina alla rumeeye mu'miniinta ahowna ku saliya nebiga oo nabadgeliyaya. taasi markaa waxa ay tilmaamaysaa ilaahay waa ammaanayaa nebigiisa oo salaada uu ku saliya waa caynkaas. malaa'igtu salliga ay nebiga ku saliyeenna waa u ducaynay u duceeyeen. salaatu llahi sana'uhu calayh wa salaatu lmalaa'ikati adducaa. cabdillahi ibna cabbaas radia allahu canhu markuu fasiraya aayadda waxa uu leeyay yusalluuna yubarikuun, way baraka ayay u weydiinayaan ilaahay. waxaa kaloo lagu fasiray salaada ilaahay uu nebiga ku saliyaya calayhi salaatu wasalaam alraxma, waa naxariisuu siinayo.
وصلاة الملائكة الاستغفار صلاة ملائكته أي نبي محمد كسلي يعني واستغفار إلهي بدن بداف ويدينيان لكن سيده هوري ayaa raajix oo ah salaada ilaahay uu ku saliyay nabigeena amaantay ta malaa'igtuna ay duca tahay ilaahay bana tilmaamay in ay u ducaynayaan inay naxariis ilaahay iyo amaane ahaatay dadka wanaagsan saalixiinta dushooda ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim wa rahmah wa ulaa'ika humul muhtadun ayada 157 suuratul baqara ayaa ilaahay waxa uu kaga waramay oo uu ku amaanay dadka muuminiinta waajibkii ilaahay uu saaray gutay marka waxa uu kuwa dushooda waxa ahaaday salawaatun min rabbihim wa rahma amaan ilaahay xaqiisa ka ahaatay naxariis marka naxariistiina gaar buu ilaahay u sheegay amaantiina gaar buu ilaahay u sheegay kuwaas waa kuwa hanuunsan baa ilaahay macnaheedu waxa weeye calayhim salaamun min allahi wa rahma sidaasaa markaa cabaskaasi u keenaya taqaayud macnaa labadaa shay la isdabageliyay laba shay oo kala duwan inay yihiin bay tilmaamaysaa naxariistuna mid gaara tahay amaanta ilaahay uu muuminiinta amaanayaana ay mid gaara tahay haddii haddaba salaad ducadaas ama salaadaas ereygaasi uu ka yimaado ilaahay xaggiisa waa amaan hadduu makhluuqa ka yimaadana sida malaa'igta insiga jinka waxa weeyaan waa cibaadadan gaarka ah alqiyaam walrukuuc wasujuud haddii uu ka yimaado salaadaasi shimbiraha iyo xayawaanaadka iyo nusuus tilmaamaysa inay salaad la imanayaan haddii ay soo aroortana waa tasbiix haddii xagga luqada ay noqotay ilaha aynu soo sheegnay bal aynu ka marna dhinaca shareecadda ama sharcigeena wanaagsan sidee buu u tilmaamay ama maxaa salaad la yidhaahdaa salaadu waxa weeye cibaado ilaahay loo gudanayo oo ka kooban erayo iyo ficilo taasoo lagu bilaabayo allahu akbar laguna dhamaystirayo assalaamu calaykum waraxmatullah sidaad aragtay lagu dhamaynayo salaad maxaa loogu magacaabay liishtimaaliha cala ducaa ducadii bay koobsatay oo waxaad arkaysaa salaada in fara badan inaynu ilaahay baryayno oo xataa faatixada laftigeedii ayaa ducaa oo addoonkii ilaahay buu baryaya اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ودعوي إلهي وددك وناكسن جدكودا نغو هنوني أهدو النعميسي أنا هين كوي لا عروضي يهودها هي كوي هلابي نصاردها سيدا وجد أيا عبادة صلاة الله إلى هذا تعريف كاقار كالسينية وريو يفعله قاره oo lagu bilaabayo allahu akbar laguna dhamaystirayo assalaamu calaykum salaadu kolka tacriifkeedii uu sidaa noqday waxa weeye waa duco gaara ama waxay ka kooban tahay ducaaun wa cibaada iyadoo ducaduna kollayba nooc cibaadada kamida ay tahay waxa weeye cibaadadani waa talabu thawaab bilacmaali asaalixa ilaahay baynu ajri ka doonaynaa marka aynu tukanayna salaada inaga oo markaa baryayna in fara badan dhexdeeda haddii haddaba tacriifkii salaada ama qayixideedii iyo tilmaanteedii uu taa noqday bal aynu u gudubno xukumka salaada muxuu noqonayaa ilaa had iyo jeer camal kastoo lala imanaya xukum buu leeyahay camalkaasi ama waa mid mubaaxa oo iska banaan ama waa camal waajiba oo farala oo aan laga tegi karaynin kii ka tagaana dambiilo u yahay ama waa camal sunno ah oo fadligiisu uu badan yahay ase qofka markaa ka tagaa aanu dee ku naar mudanaynin camalka qaarkii in lala yimaada waa xaraam mid kale in lala yimaada waa xaraamtu kasii hooseeya isaguna wax la diido karaaha la yidhaahdo xukumka salaadu muxuu noqonayaa xukumka salaadu waa waajib waxaanu waajib ku yahay oo daliilo ah kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummadda muslimiinta ah oo isku waafaqay siday u dhan yihiin oo aanu cidina qabin inay ama sunno tahay ama ay tahay mid aan waajib hayn dhammaantood muslimiinta way isku waafaqeentaa sida qof walba muslim oo la weydiiyaaba uu ku jawaabayo waxay waajib ku tahay salaadaasi qof kasta oo muslima oo qaangaada oo miyir qaba oo daahir ah qofku muslim haddii la yidhi kii gaalka ahaa isaga wax ka horeeyaa laga doonaya
waxaa laga doonaya inuu ilaahay usoo ashahaato oo uu soo islaamo asaaskii u dhigo ilaa asaaskii camalku haddii aanu jirin ma ansaxayo. waayo binaa baa la rabaa, in wax la dhisaa la rabaayo cibaado aad ilaahay ugu dhawaato aada binayso. sidaa darteed haddaanay asaas helin ansixi mayso. baalik haddii la yidhina qofkii yaraa ee sabiga ahaa dee wuu tukan karaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam fara buu ihi ubadka, saynu xagga dambe ku arki doono, ase waajibkuma aha. caaqil baa la yidhi kii waalaa dee isaga xubinkii aada u muhiimka ahaa ee maskaxda ahaa baa ka dhaawacmay, sidaa darteed waajibkuma aha. daahir baa la yidhi ruuxii dumarka ida caadada lahayd ama dhiigi dhalmada kuma waajibin, saynu ku arki doono nusuusta xagga dambe. haddaba haddii aynu u baydhno qur'aanka kariimka ah iyo sida uu u waajibinayo cibaadada salaada, oo runtii aynu odhan karno maanta meel aada iyo aada u daran bay dadka kaga dhacdo cibaadadani. ama marka aad dhex marto suuqyadeena iyo fagaarayaasha waaweyn ee ilaahay cibaadadiisii lagu jiro, ee masjidkii lagu tukanayo, hadday doonto jumcada ha ahaatee, marka aad dhex marto suuqa waxaad odhanaysaa war malaa waddankan waxa ku nool aqaliye muslimiina, dadka inta badanina muslimiin maaha baad odhanaysa. waayo boqolkiiba inta soo gashay masjidka iyo inta dabadda joogta ee aan kaba warhaynin ee ama qaad ku heesaysa ama wax kala wada, marka aad isu eegto aad iyo aad baad runtii u yaabaysaa. bal haddaba waxaynu eegi doonaa nusuusta ka warramaysa cibaadada waajibnimadeeda. ilaahay baa waxau ihi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin xunafaa wayuqiimu salaata wayuutu zakaa wadalika diinu lqayima. suuratu lbayina aayadda 5 waxaa la faray dadku inay ilaahay keligii caabudaan oo cibaadada alleh wax kale lama wehelin karo, lama raacin karo, iyagoo weliba ilaahay u gooni yeelaya cibaadada, iyaga oo ah xunafaa alle xaggiisa un u leexanaya oo diinaha kale iyo ciddii kale ay caabudi lahaayeen oo dhanba kasoo leexanaya. salaada in ay oogaan baa la faray dadka, zakadana ay bixiyaan. diinta toosanina waa taas baa ilahay uri wadalika diinu lqayima. diinta fiicane islaamka ilaahay addoomaha uu ka doonaya waa taa. aayad kale waxa ilaahay uu ku yihi waa suuratu nisaa aayadda 103 ina asalaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta. salaadu waxa ay noqotay dadka mu'miniinta ah waajib saaran, kitaaban mawquutan maktuuban mu'aqatan. waa shay lagu waajibiyey. yaa ku waajibiyey? ilaahay abuuray ee addoomaha ay u ahaayeen ayaa mu'miniinta ku waajibiyey. waana wakti bay leedahay cayiman oo salaad walba waktigeeda la tukadaa, sidaynu aragnay ee aan inaga qarsoonayn haddii aynu dadka muslimiinta ah. labada aayadoodba si cad waxa ay u sheegeen cibaadadani inay tahay cibaado farada oo aan la fudaydsan karin, ilaahayna uu addoomaha ku waajibiyey. xagga sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa u daliila xadiidka uu warinaya Mucaad ibnu Jabal radia allahu canhu. nebigu wuxuu u diray calayhi salaatu wasalaam yaman buu u diray. markaasaa xadiidku waa dheeraa. waxaa kamid ahaa xadiidka markii uu nebigu uhi sidaa u sheeg oo sekada u sheeg oo salaada u sheeg oo tawxiidkii oo kasii horeeya u sheeg, ayaa waxau ihi waaclimhum ana allaha iftarada calayhim 5 salawaatin fi kuli yawmin walayla. ummadda aada u tegayso waxaad ogeysiisaaye reer yamaneed inuu ilaahay ku waajibiyey 5 salaadood habeenkii iyo maalintiiba. 5 baa ilaahay uu ku waajibiyey ee sidaa ogeysii. haddii ay ku adeecaanna dee waxaad ogaanaysaa in ay yihiin dad muslimiin oo xuquuqdooda leh. xadiidkaa bukhaari baa wariyey, kitaabu zakaat buu ku wariyey. waxa labaad oo tilmaamaya salaada waajibnimadeeda iyo xukunkeeda xadiidka uu isaguna warinaya cabdillaahi ibnu cumar radia allahu canhuma, isagiiyo aabihiiba allaha ka raali noqda, waa 2 saxaabiye. waxa uu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam buniya alislaamu calaa 5. islaamnimada waxa lagu bineeyey, macnaha lagu dhisay oo tiirarka haya ah 5: shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa wa sawmi ramadaana wa xaji lbeyti liman istataaca ilayhi sabiila. 5 arkaanta kamida baa lagu bineeyey. midi waa tawxiidka, waa kelmadda qaaliga ah, miisaankeedu aada iyo aad uu u wen yahay, dikriga ugu fadli badan, rususha ilaahay waxay ku dhawaaqaan ugu qaalisan shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah.
كاللباد وحو النبي كدغ عليه الصلاة والسلام صلاة كلمتي وينو لانهاي oo waynu ku dhawaaqaynaa xaggay martay ku xigtay cibaadada ahayd waa waxa aad u cajaayib badan markaad eegto dadka muslimiinta ah mid waliba kelmadan uu ku dhawaaqaya laakiin tii ku xigtay oo cibaadada salaada ah ayaa meel la iska dhigay dadka intoodii badnay tiirka saddexaad wuxuu leeyahay ka dhigay arkaantii islaamku tirinayaaye zakada waa cidii ay ku waajibto iyo bisha ramadaan soomkeeda iyo baytullahi alxaraamka ama kacbada oo qofkii awoodi karaya ee xoolaha ayaa uu ku soo xajiyo xadiidkani aad buu saxiix u yahay awoodiisuna way badan tahay oo bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidka saddexaad waxa warinaya daliilka waa cibaadadan waajibnimadeeda عبادة بن صامت رضي الله عنه وحو سحابي قاسليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قال عن مقلي 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة حديث كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام 5 صلوات وإلهي وكواتبية الضوامها إلا إلهي سقى وحواتبية واجب كالله كان سمية لتحقرين يا نوا كاللون واجب والبني سقى يا كهر رينيا مرك حقي إلهي وكلها الضوامها وي وانا حقوقك وغمضا إلا فليون لتحقليه حق وحكهر رينيا واردك هي حق قرابة هي حق شخصك السوء كأقنوبة حق إلهي بكهر رينيا 5 salaadood ilaahay adoomuhu 5 salaadood adoomaha waajib ku yihiin qofka la yimaado buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo aan waxba ka dayicin shuruudeeda iyo arkaanteeda adaabteeda iyo khushuucdeeda qofka sideeda ula yimaada ilaahay ballan buu ugu qaaday inuu jannada geliyo maxay nooga baahi badan inaynu helo ilaahay ballantiisa ilaahayna ballantiisa kama baxo xadiidkan isaguna waa saxiix abi daawud baa warinaya juska koobaad 266 صفحة آياتها يا حديث كسو أروري عبادة واجبنimada هذه aad bay u fara badan yihiin runtii halkana kuma soo koobi karno dhowrka daliil aynu ka soo qaadanay wuxuu ay tusaale u yihiin ama ay tilmaamayaan cibaadadani inaanay ahayn mid la fudaydsan karo oo qof muslim sheeganaya aanu ilaawi karayn ijmaaca ummaddu waxa isku waafaqday in 5 salaadood habeenkii iyo maalintii ay waajib yihiin subaxii iyo duhurkii casarkii maqribkii iyo cishaayigii 5taas inay waajib yihiin iyada oo aad ogsoon tahay mid walba tiradeedu inta ay tahay waxa kale muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin inaanay cibaadadani waajib ku ahayn ruuxii dumarka ahayd ee caadada lahayd ama tii aan daahirka ahayn iyaduna dhiigga dhalmada lahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya dumarka oo qancinaya ayaa waxa uu lahaa alaysat idaa xaadat lam tusalli walam tasum ruuxa dumarka ahi marka aanay daahirka ahayn soomka iyo salaadaba waa laga daayay inkasta oo soomka ay soo qalaynayso laakiin salaada xataa aanay soo qalaynaynin nuqdada ama qodobka saddexaad ee mawduucan aynu kaga hadli lahay waxa weeye darajada salaadu ay ku leedahay islaamka dhexdiisa darajadaas aad iyo aadka u weyn marka aad aragto runtii waxa muhiima in aanad fudaydsanin laakiin aad u hoggaansanto ama qofka muslimka ahi uu tixgeliyo nusuustan iyo daliiladan faraha badan ee soo arooraya sharcigeena ku soo arooraya salaada darajadeedu aad bay u weyn tahay islaamka dhexdiisa waxyaabaha tusinaya ahmiyadeeda iyo qiimaha ay leedahayna waxaa ka mid ah arrimahan soo socda marka u horeysa salaadii waxay noqotay cinaadudiin waa tiirka kama kacdada ah ee diinteena wanaagsan samxada ilaahay uu nabi maxamed ku soo diray tiirka uu leeyahay wey xadiidka mucaad baa tusinaya taa nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam ra'su lamri alislaam wa cumuuduhu asalaa wa dirwatu salaamihi aljihaad islaamnimada shayga arrimaha qofka laga doonayo ama waajibaadka qofka saaran shayga dhakada u ahay waa islaamnimada waa adoonka alla u hoggaansama tiirkiisuna waa salaada lafdhabarta u ah ama ay ku taagan tahay diintani kurus ammaankuna waa jihaadka macnaha shayga dhadhankiisuu sii macaan yahayna waa jihaadka marka
xadiidkaasi waxa uu xusayaa tiir aada iyo aada u weyn inay tahay cibaadadani oo islaamnimadu ay leedahay. qofka tiirkaa fujiyaana islaamnimadiibuu afgembiyaya. nuqdada labaad ee muhiimada cibaadadan salaada la yidhaahdo sii muujinaya waxaa kamid ah in ay noqotay qiyaamaha marka uu qofku isa soo taagay ilaahay hortiisa shayga ugu horeeya la xisaabinayo. axaadiidta qaarkood baa sheegaya in waxa ugu horeeya qiyaamaha addoonka la xisaabinaya uu yahay dhiigga ay dadku kala galaan ama dilka dadku ay islaayaan. waxay culimadu ku jamciyeen labada xadiid ama isugu geeyeen xuquuqda ilaahay uu leeyahay addoomaha uu ka doonayay ay markaa la imanayeen ama qaarkoodba dayaceen. waxa ugu horeeya la weydiinayaa salaada. xuquuqda addoomaha dhexdoodana waxa ugu horeeya la weydiinayaa waa dhiigga addimaa, dadku dhiigga ay kala galeen wey iyo waxyeelada ay isu geysteen. marka saasaa labada xadiid loogu wada camal falaya. nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam awalu ma yuxaasabu bihi alcabdu yawma alqiyaamati salaa fain salaxat salaxa saa'iru camali wain fasadat fasada saa'iru camali. qofka waxa ugu horeeya la weydiinaya maalinka qiyaamaha waxa weeyaan cibaadada la yidhaahdo salaada. taasaa su-aasheeda ugu horeynaysa. haddii ay cibaadadaasi wanaagsanaato camalkiisii kale oo dhami daba socod buu yahay. sekadii iyo xajkii iyo soomkii iyo sadaqadii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd waxoo dhami iyaday daba socod u yihiin oo way wada hagaagayaan. haddii iyadu ay kharibantana camalkii kale oo dhamina waa kharibmaya. sidaa darteed baa waxaad arkaysaa muhiimada aada iyo aadka u weyne cibaadadani ay leedahay inaanu qofkii odhan karin baad arkaysaa anigu waan soomayaa laakin tukan maayo, anigu xajkii baan tegayaa sekadiina waan bixinayaa laakin salaadii la iman maayo. ma kala hadhayso, waa diin wada socota, juz-un laa yatajaza. gobol in la kala jarjaro ma aqbalayso diinta. xadiidkaasi riwaayooyin kala duwan ama siyaabo kala duwan buu ku soo arooray, laakiin intuba isku macnuun bay sheegayaan. arrinta saddexaada tusinaysa salaadu ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay waxaa kamida nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi aakhiru maa yufqadu min addiin annaha aakhiru maa yufqad min addiin. diintan shayga ugu dambeeya ee la waayi doono ayuu salaada ku xusay rasuulku sala allahu calayhi wasalam. xadiidka warinaya abi umaama ee marfuuca ah ee axmed ibnu xambal uu warinayo kitaabkiisa kusoo saaray saxiixana ah wuxuu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam latunqadana cura alislaami curwatan curwa fakulamaa inqadat curwatun tashabasa annaasu bilatii taliiha faawaluhuna naqdan alxukm waakhiruhuna asalaa. waxaa la furfuri doonaa qaybaha islaamka. islaamku dee qaybo kala duwan iyo waajibaad kala duwan buu leeyahay. marka qaybihiisa kala duwan baa kolba mid dadku ay xagga dambe ka tuuri doonaan. kolba mid bay tuurayaan, dabeetana inta ka dambaysay odhanayaan aan qabsano oo aan ku mitidno. haddana qaar kalea la tuurayaa, haddana inta ka dambaysay odhanayaan intanunba inagu hadhay aan xejino islaamkii. haddana mid bay intii kale sii tuurayaan. waxa ugu horeysa la tuuri doona bu nabigu ala calayhi salaatu wasalaam waxau noqonayaa isku xukunka shareecadda la isku xukumo ee ay noqoto qaanuunkii iyo nidaamkii nolosha oo dhan xukumayay, keeda dawladeed iyo keeda qoys iyo ka dhaqaale iyo ka siyaasadeed inta oo dhan ba nidaamkii xukumayay loo qaadan maayo, waa laga tegi doonaa. waxa ugu dambaynaya qaybaha islaamku uu leeyahay salaada buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. salaada ayaa ugu dambaynaysa oo waxyaabaha lasii haysanayo iyada ayaa ugu dambaynaysa. riwaayo kale waxay ahayd awalu maa yurfacu min annaas alamaana wa aakhiru maa yabqa asalaa wa ruba musallin laa khayra fiih. riwaayada laftigeeduna waxa ay leedahay shawaahid badan waana lagu camal fali karayaa. albani laftiisuna waa saxiix buu ka dhigay. waxa xadiidkaasi uu leeyahy dadka waxa ugu horeynaya ee laga dhex qaadaya waxa weeye cibaadada la yidhaahdo ama waajibka la yidhaahdo alamaana. amaanaday dadku ku gaboodfalayaan markaasaan cid fulinaysa la helayn ama qof la aaminaba. amaanaduna dee waa macno aada iyo aada u ballaadhan. amaanadii diinta iyo xaqii ilaahay iyo addoonka ka dhexeeyey, xuquuqdii dadka,
tii caamka ahayd iyo tii khaaska ahayd mas-uuliyadihii qofku uu lahaa buu dayici doonaa aakhiru zamaanka. waxa ugu dambaynaya hadaya buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa salaada. laakiin wuxuu nabigu sheegay wa ruba musallin laa khayra fiihi buuli, way badan yihiin dad badan oo aan khayr lahayn oo haddana tukanaya. macnaha waajibkan salaadu wanaaggii uu soo jiidi lahaa iyo xumaantii u diidi lahaa ayaa meesha ka baxday, oo qofkani wuu tukanayaa un, laakiin waajibaadkii kalena wuu dayacayaa. waxyaabihii xumaanta ahaa ee salaadu ay ka reebi lahaydna wuu iska booshaaqaya oo waa la imanaya. arrinta afraad ee tusinaysa salaada muhimadeeda iyo inaanay shay la fudaydsan kara ahayn oo qof muslim sheeganaya inuu ka tegi kara inaanay ahayn waxaa tilmaamaya waxay ahayd aakhiru wasiyatin awsaa biha nabiyu sala allahu calayhi wasalam ummata. waa dardaarankii ugu dambeeyey ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadiisa ula dardaarmay, iyada ayuu si gaara usoo qaatay. xadiidkaa waxay warinaysa umu salama, allaha ka raali noqdee, saxaabiyadda xaasaskii nebiga ka tirsanayd. waana xadiid saxiixa. wuxuu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam asalaata asalaata wamaa malakat aymaanukum. war salaada ogaada buu leeyay nebigu, war salaada ilaaliya. wuu ku celcelinaya. marka erayga la eego waxa lagu magacmaayo wuxuu noqonayaa xagga carabiga aliqraa wey. waa qofkii oo lagu dhiirigeliyo shay lagu dhiirigeliyo. tanbiihu lmukhaatabi calaa amrin maxmuudin liyafcalaha baa la yidhahdaa iqraaga. qofkii lala hadlayo o lagu baraarujiyo shay aada u muhiima si ugu dadaalo. sidaa darteed buu nebigu asalaata ayuu leeyahy. waa sida uu qofka waacidka ama khudbadda akriyaya u idhaahdo allaha war ilaahay laga cabsado. markaa waxaa kaluu nebigu raaciyay calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaabaha gacmihiinu ay milkisan yihiin. addoomihii iyo xoolihii noolaa inaan iyagana lagu gaboodfalin. waxaa shanaad oo tilmaamaya cibaadadan salaada la yidhaahdo muhimadeeda iyo qiimaheeda iyo inaan la fudaysan karin. alla waa ammaanay cidda cibaadadan la imanaysa, ehelkiisa iyo ubadkiisa iyo ummadiisana ku waaninaya. fi suurati maryam aayadda 4 ilaa 5 ayaa ilaahay waxa yihi wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kana saadiqa alwacdi wa kana rasuula nabiya wa kana ya'muru ahlahu bisalaati wazakah wa kana cinda rabbihi mardiya. kitaabka qur-aanka waxaad ku soo qaadaa ammaantii iyo wanaaggii uu lahaa nebiga la yidhahdo nebi ismaaciil. ballanta ayuu si wanaagsan u oofin jiray, rasuul buu ahaa ilaahay uu soo diray, ehelkiisa waxa uu fari jiray salaada iyo sakada, ilaahay agtiisana mid rabbi uu ka raali yahay wey. nebigaa ammaantii uu ilaahay ammaanayey waxa uu ku daray cibaadada salaada la yidhaahdo inuu ilaalin jiray, uu la iman jiray, ehelkiisana fari jiray. idan markaa ammaantaa wax inooga baahi badani ma jiro. ammaantaa ilaahay oo addoonka ammaanayo, cibaadadan ku ammaanayo. muhimadeeda iyo qiimaheeda waxaa tusinayo 6. ilaahay waxa uu eedeeyey aafe inay leeyihiinna uu inoogu sheegay qur-aanka dhexdiisa kuwa cibaadadan dayacay isla markaana ka dhacay ka caajisay. fi suurati maryam aayadda 9 ayaa ilaahay waxau ihi fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacuu shahawaati fasawfa yalqawna gaya. ambiyadaa aayaadku ay ka soo warrameen ammaantooda waxaa ka dambeeyey baa ilahay uhi kuwa dadxuna oo salaadii dayacay, wixii naftoodu ay doonaysayna dabagalay xaaraanba ha ahaadee hadhow bay la kulmi doonaan baa ilahay uhi gayan. qaygaasi waxaa lagu tilmaamay inuu yahay webi naarta dhexdeeda oo naari ay holcayso, oo naarta laftigeeduba ay ka yaabsan tahay. waxaa kaloo ilaahay uu ku yihi aayadda 142 suurat nisa ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ila qaliila. munaafiqiintu buu ilahay munaafiqiintu ilaahay bay khiyaamaynayaan. marka ay salaada u kacaanna waxay istaagayaan iyagoo caajisiin ahoo dadka istusaya oo ujeedo leh oo aan alle iska dhisayna isla ummadda iska dhisa. ilaahayna in yarun bay xusaan. marka wuu eedeeyey kuwii tacbaanka ku tukanaya cibaadadan ee cibaadadani aanay dhadhan u samaynaynin iimaankooda oo daciifa awgeed. cibaadadan
muhimadeeda iyo qiimaheeda waxa muujinaya toddobaad waxa weeye acdamu arkaani alislaami wa dacaa'imu alcidaam bacda shahaadatayn. sidaad arkaysa xadiidkii horeynu soo akrinay waxa uu tilmaamay arkaanta islaamka talabaad inay tahay oo tawxiidkoo quri uu ka horeeyo. xadiidkaana horeynu usoo akrinay cabdillahi bni cumar uu sheegayey in tiirarka islaamku ay shan yihiin, tawxiidku ugu horreysiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, waxa uu ku xigsiiyey cibaadada salaada ah. waxa sideedaad oo muhimadeeda tusinaya cibaadaadka kale o dhan dhulka ayaa lagu waajibiyey, laakiin cibaadadan ilaahay waxa uu waajibiyey oo uu nebiga kusoo waajibiyey calayhi salaatu wasalaam biduuni waasita laylat alisraa'i fawqa sabci samaawaat, iyadoonu malagnaba usoo dirin baa ilaahay uu saaray nebiga oo lagu waajibiyey caalam alculuw, caalamka koraa lagu waajibiyey. cibaadooyinka kalena iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhulka joogo. marka muhiimada ay leedahay iyo wanaageeda iyo siduu ilaahay u jecel yahay ayaa ay muujinaysa arrintaas. waxa sagaalaad oo muhiimada iyo qiimaha salaada muujinaya konton iyadoo abaa la waajibiyey. markaasa kolba sidii nebiga looga sii fududaynayey ayaa shan laga soo reebay, laakiin ajrigii konton kale. taasi waxay tilmaamaysaa oo ilaahay uu u farabadiyey jacayl uu jecel yahay awgeed. waayo cibaadadan marka hore waxa sagaalaad oo kamida qiimaheeda cibaadadan ilahay iyadoo kontona buu waajibiyey. wahada yadullu calaa maxabati illahi tacaala, jacaylka ilaahay uu jecel yahay bay tilmaamaysaa taasi. fafaradahaa 5 salawaatin fi lyawmi wallayla fahiya 50 fi lmiisani wa 5 fi lcamal, wahada yadullu calaa cidami makaanatiha. cibaadadan qiimahaasay ilaahay agtiisa ku leedahay, allana sidaasi u jecel yahay, kala yimaadana waa jeclaanaya. waxa tobnaad oo qiimaheeda muujinaya markuu ilaahay qur'aanka dhexdiisa ku ammaanay ee uu ku tilmaamay dadka muflixiinta ah ee liibaanay, waxa uu ku bilaabay sifaadka dadka wanaagsan, waxaanu ku khatimay cibaadadan salaada, iyadaanu ku bilaabay, iyadaanu ku khatimay. waxaad akriyi kartaa suurat lmu'minuun ama qad aflax bilowgeeda, qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. waxaa liibaanay mu'miniinta salaadooda dhexdeeda ku khushuucsan ee alle ku xidhan ee aan ka dhacsanayna ilaahay ku toosan ee soo jeeda. waladiina hum cani lagwi mucriduun, waa kuwa wixii xuna laqwiga kasii jeedsanaya. waladiina hum lizakaati faaciluun, cibaadada sekada la idhaha bay la yimaadaan. waladiina hum lifuruujihim xaafiduun, waa kuwa cawradooda ka asturay sino ilaa calaa azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa inahum gayru maluumiin, ooriyahooda iyo addoomahooda mooyaane. faman ibtiqaa wara'a dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun. dadka intaa kadib, dadka ciddaa ilaahay u xalaaleeyey intaa kadib xumaan ka doona waa kuwa xadgudbay. waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun, waa addoomaha ammaanooyinkooda iyo ballamahooda ilaaliya. waladiina hum calaa salaatihim yuxaafiduun, waa kuwa salaadooda ilaaliya. marka waxaad arkaysaa sifooyinkii mu'miniinta ilaahay uu ku tilmaamayay, ku ammaanayay qur'aanka dhexdiisa, wuxuu ku bilaabay uu kuna khatimay mar labaad cibaadadan salaada. waa jacayl ilaahay uu jecel yahay iyo wanaagga ay leedahay. waxaa muhimadeeda kamid ahoo 11 inuu nebigu faray calayhi salaatu wasalaam cibaadadan in ubadka lagula dadaalo, iyadoo aan soomkii xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam xusin, salaadii buu si gaara uxusay. waa xadiidka ibnu cumar uu warinayo saxiixa ayaa waxa uu nebigu uhi muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau 7 siniin wadribuuhum calayha wahum abnaau 10 wafariquu baynahum fi lmadaajic. waa barbaarintii ubadka, waxa lagu barbaarinayaa cibaadadan alleh iyo inay ilaahay ku xidhmaan oo ubad wanaagsan ay noqdaan, oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii ay ku daydaan. ubadkiina waxa fartaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam salaada fara oo amra, iyaga oo 7 jira, inan iyo idhan mid kasta ha ahaado. waalidkii waa inuu idhaahdaa aabbo ama hooyo, isagoo ilmihii la hadlaya tuko ayaa la odhanaya. marka ilmihii uu gaadho 7 jir waa lagu edbinaya, oo cibaadadan hadduu ka tago muhimadeeda iyadoo loo muujinayo iyo inaanay sahlanayn
iyo hadhow markuu 15 gaaro si aan uga tegin waa lagu edbinaya gogashana ku kala kaxeeya nabigu calayhi salaatu wasalaam ubadka inamada iyo hablaha nabigana calayhi salaatu wasalaam iyo dadka mu'miniinta aba sidaa uu ummadda u amray ayaa ilaahay qur-aanka dhexdiisa ugu amray waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narzuquka waalcaaqibatu litaqwa aayaddaa suuratu daha ku jirta 132 ilaahay waxau ihi nebi maxamed ow ehelkaaga waxaad fartaa salaada kuna sabir salaada ku sabir waa cibaado dadaal badan u baahan soo jeed bay u baahan tahay ilaalin bay u baahan tahay salaada ku sabir ehelkana far marka rasuulka un ku gooni maaha calayhi salaatu wasalaam aayaddu laakiin rag iyo dumarba ummadda waa saaran yahay amarkani arsaaqad ku weydiin maayo baa ilahay uhi laakiin arsaaqadaada iyo ta ubadkaaga iyo ta ehelka aniga ayaa intaba haya oo ku siinaya naxnu narzuquk marka arsaaqada iyo salaada waxa ilahay isugu xidhiidhinayaa bay leeyihiin culamada tafsiirku in badan oo dadka kamidaba adduunyada ku mashquulaya intay arsaaqadu ordayaan ayay cibaadada ka mashquulaan marka alla waxa uu halkan ku xusayaa qofka wixii loo qoray calafkiisa kollayba inuu qaadi doono ase aanu dayicin ilaahay xaqiisa waxa 12 oo salaada muhiimadeeda muujinaya qofkii hurday iyo kii ilaaway labadaba waxa la faray inay salaada soo qaleeyaan kan hurdayna markuu soo tooso kan kale ilaawayna marka uu xusuusto taasina waxa ay tusinaysaa cibaadadani inaanay ahayn cibaado la fudaysan karayo Anas ibn Malik xadiidka uu warinayo ee nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam Bukhari iyo Muslim ku sugan ayaa wuxuu nabigu xadiidka ku yiri man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha la kafarata laha illa dhalik qofka salaada ilaawa ha tukada marka uu xusuusto kafaara kale ma laha aan arinta ahayn riwaayo kale waxa Muslim uu warinayo man nasiya salatan aw naama anha فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها قفك صلاة كسيحدة أما إلاوة مركا وحصوصته أما وصوته سويها تكذو وحلم إذا بإليه العلماء قفكي إساقنا مير دور صومي أما صحلين تلها صدح عشاء يوحي كير هديه كسو مير سدو قلين يا عبادة لكن صدح عشاء وحي كسيب بضن هديه قفك نسوح صلاة عبادة لكم لها وما سوى قلين sababtuna waxa weeyaan inuu xaqi waalida ay raacay khasaa'ista salaada waxyaabaha salaada u goonida ayaynu imika halkan ku xusi doonaa hadii aynu soo qaadanay dhowr iyo 10 arimood oo qiimaha salaada tilmaamaya marka uu horeysa salaada ilaahay waxa uu ku magacaabay quraanka dhexdiisa iimaan ayaa lagu tilmaamay salaadii taasina waxay muujinaysaa iimaan inaanu jiraynin la'aanteed wama kaana Allahu liyudii'a iimaanakum إن الله بالناس لرؤوف رحيم إلهي ملو من أي صلاة دين إلهي دادك آد بوغن حريصانيا مركا عبادة دي قتين وبيرينيا آيات وحي كسو دكتبير هذا العلماء مركي لا يسويدية صلاة دي لو تكني بيت المقدس انتي أن لقى سوى تشاهدين دادك مسلمين ساعة قالوا ما أنصح دي مساي ما ينصحين إلهي باكت شوابين ينصح دي عبادة دات سيقار آيات قرآن كريم كاي وأحصى صلاة إن بدن وأقم الصلاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة عبادة الصلاة قرآن كدحريس مركز يكتو عبادوين كالدوان أيام مرر بدن للا حريريا مر والبا إيادوا تصونق نقليس مركز سو عبادوين كميد كميدا للشيغي يا أخلاق دوان أكسن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صلاة دي وحي للشيغان تهي وقت قاسة كده آيات سورة البقرة صدحية فرصة صلاة دوغة سكدة بحية كو الركوع يلا الركوع فصل لربك وانحر وسورة دا قابنا إن أعطين إلهي وحوري إلهي أتكو وقورع أما وضحية دي قورع أما هديكي كعبة لو قورعي مركنا قورعي بالراعي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وآيات أين كفر فرنا إلى الصلاة دعاء الاستفتاح salaadayda iyo gowracayga iyo geeridayda iyo noloshayda intaba ilaahay baa iska leh alla ni sudhiiba arrimahayga oo dhan aanu dhiiftay oo ansaxoodana haya markaana cibaadooyinka kale lala xidhiidhiyay marka muhiimadda ay leedahay iyo fadligeeda iyo dheeraadkeeda ay tusinaysaa taas cibaadadan salaada la yiraahdo
waxyaabaha u gaarka khasaa'isteeda waxyaabaha u goonida waxa kamid ah ilaahay waajib buu ka dhigay calaa kulli xaalin si kastaba marnaba looma cudur daarin mid buka iyo mid cabsanaya iyo mid musaafira iyo mid daciifa midnaba waa laga yaabaa shuruudaheeda in laga khafiifiyo addoonka dahaaradii iyo waxyaabaha ama cadadkeeda la yareeyo tii 4 tahay 2 laga dhigo laakiin inta caqligu joogo cibaadadani way joogtaa waa adiga arkayo soomkii hadduu qofku kari waayo ama fidyu bixinayaa ama siyaabo kale ayuu uga gudbaya laakiin cibaadadan iyada lagama tegi karayo marnaba xabada oo dhacaysa ayaa la tukanaya cibaadadan marka la gudanayo bal u fiirso ilaahay waxa uu faray addoonkii inuu noqdo akmal alaxwaal xaaladda uu ugu wanaagsan yahay waa inuu si soo taaga cibaadadan oo waxa shuruudeedii kamid a inuu daahir yahay qofkii inuu qiblada qaabilo inuu dharkii u wanaagsanaa xidho ila ilaahay baa waxa uu leeyahay yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilma bani aadam oo mar kastoo masjid galaysaan oo ilaahay u tukanaysaan dharka ugu wanaagsan qaata dahaaradiina waa la faray oo cibaadadani ma ansaxayso haddii aanu qofkii dee dahaaro qaadanin aayaadkii waysada ka warramaya iyo maydhiga ee suuratulmaa'ida ood garan waxa 7 oo dheeraadkeeda muujinaya ama khasaa'isteeda iyo waxyaabaha u goonida ah kamid a istucmila fiiha jamiicu acdaa'i linsaan qofka xubnihiisa oo dhan baa laga shaqaysiiyey qalbigii iyo carabkii iyo xubnihii intaba waxaa la diiday qofku marka uu iyada ku jiro in uu innaba wax mashquula galo laakiin qalbigiisu waa inuu soo jeedaa waayo wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam goorta addoonku ilaahay ugu dhow yahay waktiga uu cibaadadan gudanaya inay tahay waxaynu u gudbi doonaa bal hadda xukumka uu yeelanayo qofka haddaba cibaadadan ka taga waanaynu ogsoonahay maanta xaaladeenu sida ay tahay bulshadeena rag iyo dumarba halka ay marayaan iyo dareenka ay ka qabaan cibaadadan ama sida ay u fudaysanayaanba culimada islaamku way isku waafaqsan yihiin qofka cibaadadan ka taga isaga oo aan aaminsanayn inay tahay waajib macnaha maba aaminsana qofkani inay waajib tahay waa gaaloobaya qofkaas ama ha yidhaahdo isagu waxaan ku tukadaa meelo kale ama ha yidhaahdo anagu waaba nalaga dul qaaday la ilahay baa yihi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebi maxamedow ilaahay caabud ilaa geeridu ay ku imanayso marka cid laga dul qaadayo cid laga dhaafaya toona ma jiro marka hadduu qofku fikirka noocaasa qabo xadda inuu ka baxayo way isku waafaqsayen culimada islaamku laakiin haddii uu ka tago cibaadadan caajisnimo darteed hadduu uga tago culamaa lmuslimiin qaarkood waxa ay leeyihiin waa gaaloobay markaana qaarna waxay leeyihiin dembi aada iyo aada u weyn buu la yimi oo hadduu ka toobad keeni waayo waa la dilaya daliilada kolka aynu soo qaadano qolyaha ku tegay ama culimada qabtay inay waajib tahay waajibkaa hadii laga tagana dee kolley waajib waa la isku waafaqsan yahay macnaha inuu ku gaaloobayo qofka ka tagaa culimada qabtaa daliiladay soo qaadanayaan waxaa kamida kuwan ilahay baa wuxuu ka warramayaa xaaladii dadku siday noqotay maalinta qiyaamaha markaa wuxuu rabbi yidhi yawma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuud falaa yastatiicuun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun maalinka qiyaamaha ayaa ilahay uu ka warramay addoomihii sujuud loogu yeedhayo dabeetana kuwii aan hore u sujuudi jirin ifkii ma sujuudayaan adduunkii baa sujuudda loogu yeedhi jiray iyaga oo nabad gashan markaasay diideen maalinkaa qiyaamahana ma sujuudi karayaan waa xaalad ay ku kala baxayaan dadka jannada gelaya iyo kuwa naarta gelaya ama kufaarta iyo munaafiqiinta waxaa kaloo ilaahay uu ka warramay maalinka qiyaamaha ahlu jannihii oo iswaraysanaya waxay waraysanayaan oo kale ahlu naarkii waa caalam runtii aynaan weli gaalin laakin aynu rumaysannahay macnaha jannada iyo naartu intay isu jiraan sidee bay wada hadli karaan labada qole ee qolana jannada ku jirto qolana ay naarta ku jirto sidee baanu ololka halkaa ka baxaya usoo gaaraynin waynu rumaynaynaa inagu ila imikaba waxaad arkaysaa dhawaaqa dheer iyo aragga dheer in lagu soo dhawaynayo maqal iyo muuqaal in lagu soo dhaweeyey baad arkaysaa waa awoodii yarayda insaanka ti ilaahayna maxaad u malaysa ilahay baa yihi kullu nafsin bima kasabad rahina ila asxaaba alyamiini fi jannatin yatasaaluuna can lmujrimiin ma salakakum fi saqr qaluu lam nakun min almusaliina walam nakun nudcimu lmiskiin wakuna nakuudu maca alkhaa'idiin
qoladii jannada ayaa waxay ku yidhaahdeen qoladii naarta maxaa naarta idin geliyey? waxay yidhahdeen waanaan tukan jirin, dadka baahan baanaan wax siin jirin, xumaanta oo dhan baanu dhex dabaalan jirnay, qiyaamahana waanu beenin jirnay. marka dadkii mujrimiinta ahaa ee naarta galay ayaa ilaahay uu ku daray waxyaabahay naarta ku galeen inay kamid tahay salaad la-aantii. waxa kaloo markaa rabbi uu xusay dadka mu'miniinta ahi kuwa gaaladaa goorta ay soo dhoweyn karaan, xabadda ay ka joojinayaan, xurmo ay leeyihiin la siinayo marka ay salaada tukadaan inay tahay. fain taabuu waaqaamuu salaata waaatawu zakaata faikhwaanukum fi ddiin wanufasilu laayaati liqawmin yaclamuun. hadday ilaahay u toobad keenaan kuwa gaaloobay, cibaadada salaada la yidhaahdana ay gutaan, sakadana ay bixiyaan, waa walaalihiinii diinta idinkula walaalahaa baa ilahay wuri. marka walaaltinimadii waxa lagu xidhay cibaadadan gudashadeeda. waxa daliilka afraada ee ay soo qaadanayaan culimada tilmaamaya taariku salaadku inuu gaaloobayo xadiidkan saxiix ee nabiga ka sugnay calayhi salaatu wasalaam. xadiidkaa wuxuu nabigu ku yihi bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufr tarku salaa. qofka iyo waxa udhexeeya gaalnimada cibaadada salaada la yidhaayo uu ka tago. hadduu taa ka tago gidaarkii wuu dumiyey, xagga gaalnimadan u tallaabay. xadiid kaloo cabdillahi ibnu burayda uu aabihii ka warinayo ayaa isaguna waxa uu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam alcahdu aladi baynana wa baynahum tarku salaati faman tarakaha faqad kafar. arrinka annaga iyo gaalada noo dhexeeya waa cibaadadaa ka tegiddeeda. waxa lixaad oo ay soo daliishanayaan culimadaasi aragtida ama asarka uu warinayo cabdillahi ibnu shaqiiq radia allahu canh. wuxuu leeyahy kana asxaabu muxamedin sala allahu alayhi wasalama laa yarawna shayan min alacmaali tarkahu kufran gayra asalaa. asxaabtii nebigu shay camalada kamid ahoo laga tago gaalnimo wuxuunay u arkayeen un cibaadada salaada la yidhaahdo. cibaadada salaada la yidhahdo marka asxaabtuna ridwaanullahi calayhim waa kuwii xaadiray nebi maxamed xadradiisii iyo jaamacadiisii iyo tarbiyadiisii. sidaa awgeed halkaa waxaa ka muuqanaya in qofku uu ku gaaloobi karaya bay culimadaasi ku tegeen haddii uu cibaadadan ka tago. kollayba waxaad arkaysaa in khatarteedu ay aada u badan tahay oo kuwa kale laftigoodu ay leeyihiin qofkani haddii uu cibaadadan ka tago waxaa loo dilayaa xad baa loo dilaya, qaarna gaalnimaa loo dilayaa bay leeyihin. heerkaasa ayuu taagan yahay khilaafkii culimadu. waxaynu u gudbi doonaa fadliga salaada. salaadu fadliga ay leedahay ayaynu bal mawduuceenan kusoo gebagabayn doonaa. runtii marka aad nusuustaa dhegaysato qur'aan iyo xadiis bale qiimaha iyo ammaanta ay cibaadadan u sheegayso, qofka muslimka ah ee caqliga lihi ina uu ka faaidaysto ka sahay qaato ayuu isku dayaya. ugu horeyn cibaadadani tanhaa cani alfaxshaai waalmunkar. qofka waxa ay ka dawaysaa ilaa cudur waliba daw uu leeyahay faalxumada iyo ceebta. qofka bani aadamka ahay ma jecla inuu adduunka ku ceeboobo iyo inuu ku fashilmo toona, aakhirana hadalkeeda badaa. marka ilaahay baa kaga ilaaliya faalxumada iyo ceebta addoonka. utlu maa uxiya ilayka min alkitaabi waaqimi asalaa ina asalaata tanhaa cani alfaxshaai waalmunkar waladikru llahi akbar wallahu yaclamu ma tasnacuun. aayaddaa suuratulcankabuud ku jirta 45. ilaahay waxa ui waxyiga lagugu soo dejiyo nebi maxamed ow dadka ku dul akri. cibaadadan salaada la yidhahdana si fiican u og. salaadu foolxumada iyo macsiyaday dadka u diidaa. ilaahay xusida oo addoonka xusaya ayaa aada u weyn. ilaahay wuu ogsoon yahay waxaad samaynaysaan. marka halkaa waxaa ka muuqda xuska ilaahay in lagu helayo cibaadadan. xusida ilaahay addoonka uu xuso ee malaa'igta ugu faanaana waa midhka aynu doonayno inu u baahannahay in badan. waxa labaad oo fadligeeda kamid a dee in camalada tii ugu qiimaha badnayd ay tahay tawxiidka kadib. arkaanu islaamka kii labaad weyi, sida aynu xadiidkii hore kusoo qaadanay. waxa saddexaad oo fadligeeda kamid a in ilaahay uu ku safaynayo uu ku tirtirayo alkhataaya gafafka. waxalla wixii gafa ayay sida iskiisada qalinka loogu masaxo cibaadadani u tirtiraysa. jaabir ibn cabdillaahi radia allahu canhu waxa uu leeyahay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam mathalu salawaati alkhams kamathali nahrin kamr calaa baabi axadikum yaktasilu minhu kula yawmin 5 maraat. 5 salaadood tusaalahoodi iyo muuqaalkoodu wuxuu ka dhigan yahay webi qulqulayo mid idinka mida albaabkiisa, maalintiiba uu ka maydhanayo 5 jeer. dee waxba ku hari maayaan wasakdiisa, wax alla wixii saaraa jirkiisa waxba ku hari maayaan, xataa haddaanu saabun ku maydhanin.
waxa afraad oo fadligeeda kamida ina dhiiri gelinaya annaha tukafiru sayi'aat ilaahay waxa uu ku tirtirayaa dunuubtoo dhan baa ilahay uu ku tirtirayaa الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر شنت الصلاة انت كدحيس لبدا جمعة انت كدحيس لبدا رمضان انت كدحيس إلهي وحا وكتر تلا ذنوب طولن بو النبي عليه الصلاة والسلام marka dunuubta waaweyn la iska daayo oo taa waaweyn iyada tawba ilaahay uu ku tirtiraya cibaadadani fadligeeda waxa kamid ah shanaad nuurun li saahibiha fi dunya wal aakhirah adduunyada iyo aakhiraba nuur bay u tahay qofka sida uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidka mustadrak imaam ahmed ku sugan uu sanadkiisuna fiican yahay la daliishan karayo uu ku tilmaamayo man xaafada calayha kanat lahu nuuran wa burhanan wa najatan yawma alqiyaamah qofka cibaadadan ilaaliya nuur bay u noqonaysa maalinka qiyaamaha daliil u cuskaday u noqonaysa nabadgelyana way u tahay waxa lixaad oo fadligeeda kamid ah ilaahay darajooyinkuu qofka kor ugu qaadaa sidii dunuubtaba ay u tirtiraysay cibaadadani nin saxaabi uu nabigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam oo sawbaan la idhaa markaa waxa uu ku yidhi calayka bikasrati sujuud fa inak laa tasjudu lilahi sajdatan ilaa rafacaka allahu biha daraja waxata canka biha khati'a war cibaadada salaada la idhaa iyo sujuudda badigu mar kastood ilaahay u sujuuddo daraja kor lagugu qaadaya mar kasta oo aad sujuuddo ilaahay dembi buu kaaga ridaya darajada kor baa lagugu qaadaya dembina waa lagaga tiraya waxa toddobaad oo fadligeeda cibaadada kamid ah la rafiiqida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jannada lagula rafiiqo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ugu weyn bay cibaadadani kamid tahay saxaabiga la yidhaahdo rabiicatu bnu kacb alaslami waxa uu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan meel la seexan jiray waan u shaqaynayay waysadiisii iyo muraadkiisii wixii u baahnaa baan u keenay war waxuuni weydiisa bu ihi markii uu arkay anigoo heelan oo aada ugu shaqaynaya rasuulki ilaahay ayuu nebigu ihi duco ilaahay ku aqbalo aan rabbi ku baryay weydiiso ninkani ma odhanin xoolo badan iyo daaro sida qaar badan oo inagii odhan lahaayeen laakiin halkii ay ka macayd buu ka qabto waxa uu leeyahay as'aluka muraafaqataka fi ljanna wuxuunaan ku weydiisanayaa inaan jannada nebi maxamed oo kugula rafiiqo adaa lagu ballan qaade taa waxaan ahayn ma i weydiisanaysaa buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam maya arrinkaygu waa taas bu nebigu wuu soo gaabiyo waxau ihi faacinii calaa nafsika bikasrati sujuud haddaba naftaada waxaad ku badisaa sujuudda waxaad si aad ila qabsato aada ugu dadaashaa sujuudda badan buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam waa salaada badan weyi xadiidkaas oo muslim ku sugan waxaa sagaalaad oo fadligeeda kamida tucaddu diyaafa fi ljannati biha kulama qadaa ilayha almuslim aw raax sababaha addoonka darajooyinkiisa jannada ay kor ugu kacaan ama waxyaabaha lagu martigelinayo aada loogu sii badiyo waxa kamida cibaadada salaada oo qofkii uu badiyo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man qadaa ila almasjidi aw raax acadda allahu lahu fi ljannati nuzulan kulama qadaa aw raax mar kasta oo qofku masjidka uu kusii caraabo kasoo socdo ama uu kusii socdo ilaahay wuxuu u diyaarinayaa martigelyo qaali ah oo u biiraysa oo jannada dhexdeeda ah waa mar kastaba cibaadadan salaada waxaa kamid a fadligeeda oo tobnaad waxa addoonku uu ku helayaa ducada malaa'igta mar kastoo halkii uu ku tukaday uu sii fadhiyo malaa'igta ducadeeduna dee waa maqbuul oo ilaahay baa aqbalaya waayo waxaan ilaahay raalli ka ahayn addoommo aan la imanaynin weye ilahay baa waxa ui laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun wixii ilaahay uu amre uu raalli ka yahay un bay la imanayaan marka malaa'igtu hadday qofka u ducayso ilaahay wuu aqbalaya rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu ku yidhi xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan abi hurayrana uu ka soo maqlay salaatu rajuli fi jamaaca taziidu calaa salaatihi fi beytih wa salaatihi fi suuqih bidcan wa cishriina daraja qofku ama ninku salaada uu ku tukado jamac waxa ay dheeraad ka leedahay salaada kale uu ku tukado suuqiisa ama gurigiisa waxay dheer tahay
dhowr iyo 20 darajo 25 ama 27 macnaheedu waxa weeye taw masjidka iyo jamaca la tukadaa waxay ka badan waxay u dhigantaa 27 salaadood oo guriga uu ku tukanayo ama suuqa bal hadaba isku day hadaad meherad hayso ama gurigaaga aad fadhido inaanu jamcu ku dhaafin ilaa 27 salaadood bay u dhigan tahay waa fadli aad iyo aad weyn wadalika inna ahadakum idha tawadda fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjid mid idinka idinka mid ibn nabigu alayhi salatu wasalaam marka uu weysaysto weysada uu wanaajiyo masjidka yimaado iyadoo salaada uu soo soconayo talaabo kasta uu qaado ilaahay darajo kor ugu qaadaa ama dambi buu kaga ridaa marka uu masjidka galana ama ha tukada ama ha iska fadhiya salaadun buu ku jiraa malaa'igtuna wal malaa'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi malaa'igtuna qofka tukaday inta uu ku wardiyayo quraanka ku akhrisanayo iska fadhiya meeshii uu ku tukaday ilaahay dambi dhaaf bay weydiinaysaa waxaanay leedahay allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi ma lam yuhdith fihi malaa'igta ducadeedu waxa weeye ilaahay uu naxariiso ilaahay uu dambi dhaaf ilaahay uu ka toobad aqbal hadii aanu qofkaasi halka inta uu fadhiyo cid dhibaato u geysanin dhibaatadii waxa kamid ah isagoo meeshii ka qayliya isagoo waxanta isagoo aflagaada la yimaada ama aanu weysa jabin buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam cibaadadan iyada waxa fadligeeda kamid ah oo 11aad inta uu qofku sugayo salaada مثلا masjidku qofkii galay oo salaad kale uu sugaya waa mid dadka inta isku kartaa aanay badnayn waxa uu ku jiraa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam difaac buu ku jiraa wantidaaru salaati ba'da salaati fadalikum ar-ribat xadiidkaas oo saxiix oo kitaabu tahaara uu maaragtay ku soo arooriyay muslim nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam salaadaha qofku uu sugayo waxa ay tahay difaac uu ku jiro macnaha wuxuu ku shabahayaa dhufayskii cadowga loogu jiray front line-ka hore ama jiida cadowga lagala dagaalamayay qofkii difaaca ku jiray kan isaguna masjidka fadhiya salaada sugaya ayaa la mid isaguna waxa kale rasuulku xusay sallallahu alayhi wasallam oo fadligeeda kamida salaada waa ka 12aad qofka cibaadadan u baxa wuxuu helayaa ajriga uu helayo qofka xajka u baxay oo kale man kharaja min bayti mutadahiran ila salatin maktuba فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تصبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين حديث كلفتي صال لقلت المامين الصحيح يعني وحول بيقول عليه الصلاة والسلام قفك إستغو طهارة قبول نظيفة وشروط دي وفصلي صلاة أوبحة أجرق أوهريا واك أوهريا قفك حجك أوبحة يوكلا salaatu duxada qofka u baxaana ajriga uu helaya waxa weeye ka cumrada gudanaya ajriga uu helayo kale labada salaadood la istabageliyo ee wax bilaa macnaha iyo dambi aan u dhaxaynin qofka amalkiisa waxa lagu qorayaa kitaabka qaaliga ee ciliyinka la yiraahdo halka waxaynu ka arkaynaa walaalayaal cibaadadan inay aad iyo aad u qiimo badan tahay ay mudan tahay marka inaynu isweydiino maxay kugu dhaafaysaa talawa cudurdaareed haysataa markaad iyada weyda maxaa raasamaale ku soo haraya ilaahay uu ku amro waajib uu kaaga dhigo uu kugu adoonsadee maxaad kaga jawaabi doontaa maalinta qiyaamaha marka uu ku weydiiyo iyadoo camalkii ugu horeeyay la isweydiinaya marka qofka muslimka ahi ma fudaysanayo cibaadadan iyada waa ku dadaalaya isaga ku dadaalaya ehelkiisa ayuu farayaa ubadkiisa ayuu ku tarbiyeynayaa waxa uu u arkayaa ka tegideedu inay khatar badan leedahay waxa uu arkayaa ka tegideeda in nicmo weyn iyo fadli weyni uu ku dhaafay waayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid faakthiru fihi ad-du'a faqaminu an yustajaba lakum adoonku goorta uu ilaahay ugu dhow yahay waa marka uu sujuudsan yahay markaasuu ilaahay ugu dhow yahay oo ducadaada la aqbalaya marka ducada ha ku dadaalo buu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofku ducada aad iyo aad ha ugu dadaalo waa fursadaad faa'iideynayso waa telefoonka qaaliga waqtigaad ilaahay kula xidhiidhayso markaa saaxiibada iyo ehelkaada inaad ugu gurmato ayaa waajiba oo cibaadadan kii fududaysanaya aad runtii muhiimadda ay leedahay u tilmaanto iyada oo taasi ay ka qayb qaadanayso wanaajinta mujtamaca iyo horumarkiisa adduunya iyo aakhirada wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.
سؤال كوباد موضوعا لا حريرة waxay tiri gabadh nasiibka heshay soo qortay salaada inta aanan gelin ma waxaan ka horeysiyaa aqimitaan salaadu marka ay dumarku tukanayaan korun baanay u adeemaynin laakiin aadaanka iyo aqimida labadaba way leedahay waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi salluu kamaa ra'aytumuni usalli waxa u tukataan sida aragteen anigoo u tukanaya oo kale marka ragga iyo dumarku wuxuu xadiidkaasi tilmaamaya inay iskaga mid yihiin cibaadadan salaada inay iskaga mid yihiin wixii sharcigu uu gooni ahaa uu u cayimo dumarka si gaara uu u tilmaamo mooyaane marka aadaankiina way leeyihiin aqiimidiina way leeyihiin iyagaana istukinaya iyagoo dee adaabtoodii iyo shuruuddii kale iyo wixii kale o dhan soo oofsanaya adaanay kor uqaylayaana ma jiro laakin si hoose un bay ula imanayaan wallahu aclam su-aasha labaad ee su-aalahan maanta waxa ay tiri gabadha soo qortay qofku sidee buu khushuuc fara badan u yeelan karaa marka uu salaada tukanayo khushuucdu waxa weeye lafdhabarta salaada waana addoonkii oo ilaahiisa la xidhiidhsan wey culamada muslimiinta iyo fuqahaduna waxa ay leeyihiin salaada addoonku wuxuunu leeyahay inta uu ismaqlayo qaarkood waxaabay shardi ka dhigaanba arkaanta qaybta qawliga la idhaahdo inuu maqlayo oo arkaanta qaybina waa wax xubnaha laga sameeyo qaybina waxa weeyaan afka laga yidhaahdaa masalan allahu akbarti faatixadii la akriyayey ataxiyaadkii la akriyayey assalaamu calaykumti waa arkaantii qawlka laga odhanayo arkaantaa qofku waa inuu maqlayaa bay leeyihin haddii aanu maqlaynin dee ma ansaxaysa bay leeyihin sidaa daraaddeed khushuucdu waxa weeye nuxurka iyo dhadhanka salaada shay waliba waxa uu leeyahay shay nuxur iyo lafdhabar u ah shayga macaanka u yeelaya addoonka ilaahay ku xidhaya cibaadadiisa tayada u yeelaya waa khushuucda sidaasaanu qur-aanku ku ammaanay waladiina hum fii salaatihim khaashicuun qad aflax bilowgeeda waa kuwa salaadooda markay ku jiraan khushuucsan wallahu aclam